inoo suura geliyay inaynu halkan iskugu nimaadno barnaamijkan caawa ugu horeeya walaalkeen Cabdiraxmaan Sheekh Muuse waxa la yiraahdaa khibrad wadaag Axmed aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga iyo groupkaaguba waxaan aad u mahadnaqayaa ka qaybgalayaashan dirdiran ee aad ku wadaneynaya inay warkan la sugayo dhan helaan aad baad u faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horeeya barnaamijkan ila wadaaga wax badan anima dhaamay waxaan ila wadaagayaa jaradan la wada fuulayo ma taqaanaa qof walba sidoo ku soo fuulay baan sidaan ku soo fuulay iyo inay caqabaduhu wax koomana yihiin insha Allah ta'ala magacayga sidaad ku aragteen warqada walaala Axmed Siidaayay waxa magacayga Cabdiraxmaan Sheekh Muuse Cismaan waxaan mar kale halka waxbarashada ku noqday intii aad hadaba waxbarashada muddada qaadatay ku dhex jirtay qisooyin ama wax challenge ka hor yimi caqabado hadan Soomaali dhacda ka hor yimiday oo dhalinyarada khibrad u noqon karaya qaabkeedu xalisay wax laga xusi karo waxbarashadii ku guda jiraan sida dhexe macallimiinta dhigto dhan hoose dhexe imtixaan laga qaado kiibaan maqlay foontu baan ahay imtixaanka inaan galan doono imtixaanka inaan galo horta waa la ii diiday oo markiiba laba kooxood baa loo kala jabay laakiin isagu dadkii ogolaadu ka mid ah wasaaradda waxbarashaduna way ogolaatay Daahir Maxamuud Xaddi isna mutaqaana uu nool yahay ilaa loo duceeyay isagana abaal la wano hayaa runtii meel kastana waan ka sheegaa abaal ay galeen macna abaalka waxaan u leeyahay de abaaluna cid familygaygu ii galin buu ii galo because uu tijaabiyo uu ogolaaday lacagii muusin try buu guri taankan galay waxa noqday ninkii uu sareeyay foontirigayga oo dhan business learning baan ku dhigtay familygana waan u shaqeynayay marka xaga dhinac baan kaleer ka fahmaadayto waxay dhahdaa wana was PhD da markaan ahaa degmada aan tagay PhD holder baan u ahaa foontu baan ahay waa tuulo magaaladani ma laha cid quraan u dhigta ma laha cid kale oo upgrade u sameeysa qof levelkan wali gaadho oo dhex jooga waa aniga business opportunity markaa ka sameeyay waxaan aan ku baro waxaan sameeyay markaa madrasad quraan ma laha gelinka dambe quraan baan furay wiilasha gabdhaha u dhigo lacag ku riyaalan ka dhaliya gelinka dambe waxaan furay private English ko new customer tuuga 10-12aad waxaan gaadhay in aan wakiilo noqdo horta intaan wakiilka noqon waxaan bartay skill kala dhaqo communication ka koow documentary films ka iyo film sawax loo duubay sax loo edit gareeyay iyo sawiranta noocyada loo qaaday iyo waxa soo dhanba bartay skill xilliga dhiman bayd oo waxaan background si yar haystay dadkii waqtiyadii Yunus Cali Nuur Noola ilaa uu xaristay BBC program ay bixin jiray iLearning loo oran jiray oo electronic lagu baran jiray oo journalism lagu baran jiray marka anagoo barta kaga jiro naga go'ay mashruucu skillka waxa la jira qof walba dhalinyarana inuu sameeyo u baahan waxa computer log in noloshaada ku sameeyo computer log baan sameeyay computer log wuxuu ka caawinayaa inaad qorato maxaad maalin kasta waxba ka dhiman meel baad wax ku arkaysaa qof waxbu yaqaan adig ka duwan aqoonsa inay meel ka dhiman tahay qoro qorshaysa waqti aad qabato qorshaysa saad ku baranayso raadi saad ku baranayso qorshaysa waqtigaad baranayso qorshaysa waqti aad rabtay inaad gaadho qiimaha muddo kadib oo eeg waxaasi maad qabatay mise maad baran businessyada waxyaabahan aan soo dhaafay aan dib ugu celiyo businesska ugu weyn aan galay wuxuu ahaa waxaan furtay brand la oran jiray City Coffee laakiin shawaarimoyn iyo shaahibaad ka cabteen shawaarimoyn oo ka cabteen biisooyin qaar baan jira xabash ka cunay Cabdiraxmaan dhalinyaradan barnaamijkeena nagala soo qayb gashay waxay isugu jiraan qaar ardaya qaar halganka shaqo hadda bilaabay qaar ganacsiye leh saddex ama labo talo maxaad siin lahayd noloshiina haddaad rabtaan inaad wax ka bedeshaan hore inagu qorshaysadina waa kadii kalena imka meel ku qorta ogow noloshu waa barasho laakiin barashadaad ku baranaysaa maaha academically u baranayso waxa ka badan taad aad isbarayso isbaristaada koowaad waxaad ka bilowdaa ethics-kaaga akhlaaqiyadkaaguna wuxuu ku dhisan yahay kow bidiiniyan wixii diinta horta ogashay ka tagtayna ka tag waxay ku dhisan laba dad la dhaqanka baro dad la dhaqanka wuxuu yahay waxa kow ka dad la dhaqanka dhageysigiina fiiriya Soomaalida way ku adagtay dhagtaada weynay hada ishaada weynay kuma wada maxaan ku wari dhagtaada weynay waxaana gaab ah number 2
iskilkiina isma baraysaan kom inuu xisbataan baan ugu yar luqaddu waa bays luqaddu wax laga xishooda maaha waa luqadda annaga bidinta la joojiya barkskale la istaagjo qof Soomaaliland ku jooga luqadda fluent ma jiro dhammaantay ana hadda nii sheegay weli waan bartaa luqaddu wax dhamaata maaha waana kolba shaqadan ku qabanayaan ku aqaana markaan report qorayo nooca reportka shaqadan ka qorayo Englishkiisa ayaan ku shaqaystaan aqaana waxaan ka qabanay saas oo kale macna wixii waa isbaris waxaana markaad gacanta ku hayso is xasuusinaya vocabulary-ga ma taqaana hadii 10,000 kelmadood maskaxdaad ku hayso 10,000 kelmadood marka aad soo warsaakad waxyaabaa dhalinyarada kamid ah wiil yar hotel ka soo baxayo isagoo soo shaqeeyay hibadu ka dhuumanaya ma koor ku hooganaya ama inantii baalka maraysa dusha ka yareega jir dadkaas ama habeen bacasho soo doonaysa maxaad meesha ka qabanaysaa ka casheynay waa dad inuu meedhiyo mogto ay idin sheegaya bisaraha waxyaabaa soo maraa kamid ah maalin biyo daadinaya baan inaan aqaanay meesha soo martay waa maxay biyo meeshaan ku arko dadka inay ku daataan